Nelo toma esta dagaalkii ugu khasaaraha badnaa wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka ayaa weli socda. waa dagaal ay ku dhinteen in ka badan 5 milyan, malaayiin kalena waxaa ku dhacday gaajo iyo cudur. 2 milyan oo dumar ah waa la kufsaday. dagaalkii weynaa ee Afrika, dabkii weynaa ee saameeyay askar iyo rayid ka kala yimid 9 wadan iyo mucaarad hubaysan oo aan la tirin karin ayaa lagu dagaalamay xuduudda halka wadan ee ugu nasiibka daran ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo. waa meel loogu deeqay nooc walba oo macdanta ah, laakiin mar walba wadanka waxa uu galaa meesha ugu hooseysa ee liiska lagu muujiyo UN Human Development Index, halkaas oo dadka saboolka ah ay ku nool yihiin xaalad aad u xun. gudaha Congo Kinshasa waxa lagu arkayaa dad la kufsaday, mucaarad, siyaasiyiin taajiriin ah iyo dad rayid ah oo dagaalka uu maskaxdoodii wax u dhimay wadan aysan dawladdu shaqaynayn. khasaaraha Congo waxa ay ku timid go'aanadii laga gaaray 5 qarni ka hor. dhamaadkii qarnigii 15aad boqortooyo loo yaqaanay boqortooyada Congo ayaa xukumaysay galbeedka Congo iyo wadamo kale sida Angola. waxa ay ahayd casri, waxay lahayd dad dabaqad sare u dhashay, bulsho rayid ah oo horumarsan. markii ganacsatada Boortaqiiska ay ka yimaadeen Yurub 1480kii waxay ogaadeen in ay heleen dhul khayraad badan leh oo qani ku ah dad fara badan. Congo waxaa joogay dad u eg in aysan daalaynin oo cudur u adkaysan kara oo in la adoonsado ku fiican sida ay gumaystayaashu u arkayeen. Boortaqiisku waxay ogaadeen in dadkan la heli karo oo kaliya haddii qaaraddu ay noqoto meel aysan dawlad ka jirin. waxa ay sameeyeen wax walba oo ay ku baabi'in kareen dadka siyaasiyiinta ah ee ay uga baqayeen in ay is-hortaag ku sameeyaan ganacsigooda iyo adoonsigooda. lacag iyo hub ayaa loo diray mucaaradka. ciidanka Congo ayaa la jibiyey, boqorkii ayaa la dilay, dadkii wadanka u talin jiray ayaa la dilay, waxaana la dhiirigeliyey xil wareejin. sanadkii 1600 kadib boqortooyadii xoogga badnayd ayaa waxa ay isku bedeshay hoggaan la'aan, gobollo dawlad la'aan ah oo dagaalo sokeeyo uu ka socdo, dadka la adoonsado. kuwa dagaalku uu saameeyay ayaa la marsiiyey badda oo loo qaaday Mareykanka. ilaa 4 milyan oo qof ayaa si khasab ah loo saaray markab wabiga Congo ku socday. maraakiib British ah ayaa ka qayb galay ganacsigaas. magaalooyinka Britain iyo ganacsatadii ayaa ka taajiray dadka reer Congo oo cabid ahaan loo iibsaday. xiriirkii ugu horeeyay oo ay Yurub la yeelatay dalka Congo ayaa qaabeeyay taariikhda dalkaasi intiisa kale. horumarkii ayaa carqaladii ay ku timid ayada oo xukuumadda Congo ay ahayd mid daciif ah oo kala dambeyn weyn oo xagga qaanuunka aysan lahayn. arrintani kuma aysan imaanin khalad ay lahaayeen shacabka Congo, hase ahaatee waxa ay ku timid danaha ay leeyihiin kuwa awood leh oo burburiyay, caburiyay, isna hortaagayna in ay timaado dawlad xasiloon, sharci ah oo faragelisa danahooda, ayada oo mar horeba ay dadka Congo ugu hanjabeen in ay faragelinayaan arrimahooda gaarka ah si in sida ugu sahlan loo suurtageliyo khayraadka qarankooda. dalku waxa uu leeyahay biyo fara badan, waxaana dhex mara wabiga labaad ee caalamka ugu weyn ee loo yaqaano wabiga Congo. waxa kale oo dalku uu leeyahay cimilo macaan iyo ciidsan oo ay wax waliba ku bixi karaan. dhulka hoostiisa waxaa jiifa kayd fara badan oo macaadin ah oo ay ka mid yihiin copper, dahab, diamond, cobalt, uranium iyo xitaa saliid oo dalka ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka adduunka ugu taajirsan. taas beddelkeeda Congo waa dalka caalamka ugu rajada xun. dalka Congo gudihiisa waxaa daafuray qarnigii 19aad Henry Marton Stanley oo ahaa sahmiye weyn oo u dhashay dalka Britain. rajadiisii ahayd in beelaha dalkaasi dega oo uu la kulmay in uu ganacsi xor ah dhex maro waxaa burburiyey boqorkii dalka Belgium Leopold oo goostay dhul aad u weyn. halkaasi ayaa waxaa laga aasaasay goobta ugu weyn caalamka ee laga qodo rubberka. xilli baaskiilada iyo lugaha baabuurta iyo qalabka korontadu ay ahaayeen waxyaabaha ugu badan ee muhiimka ah ee laga soo saaro dalalka reer galbeedka. si khayraadkaasi looga faa'iideysto ciidamadii Belgiumka si arxan darro ah waxa ay u soo xareyn jireen ragga Congo si hayin looga dhigo. waxaa guryaha laga shaqaaleyn jiray raggaasi la soo qasbay xaasaskooda.
inta la hayo waxaa loola dhaqmi jiray si aad u foolxun. ragga ayaa waxaa loo diri jiray kaymaha si ay u shaqeeyaan oo ay uga shaqeeyaan kabarka. amar diido ama gadood waxaa si dhaqso ah looga jawaabi jiray ciqaab adag oo isugu jirta karbaash iyo in dadka gacmaha laga gooyo ama in la dilo. malaayiin ayaa sidaasi ku baxay. hogaamiyaasha qabaa'ilka ee awoodda u lahaa in ay iska caabin sameeyaan waa la khaarijin jiray. arrintanna waxa ay horseeday in bulshadu ay burburto loona diido in ay wax bartaan. dhaqan waxashnimo ah oo ay hirgelinayeen indhergaratadii Biljamka oo muddo dheer jiray ayaa halkaasi laga bilaabay. tallaabo la rabay in lagu soo afjaro dhibaatadaasi ayaa keentay in ugu dambeyntii dalka Biljamka uu si toos ah ula wareego dalka Congo. hase ahaatee dhibaatadii hore ee gumaysiga ayaa weli ahayd mid sii socotay. dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa raggii galbeedka ay bilaabeen in ay ku dhintaan dalalkooda iyo meelo kaleba. dhimashadana waxaa sababay macdanta laga soo qodo dalka Congo. xorriyadda reer galbeedka ayaa waxaa lagu difaacay kheyraadka laga soo saaro dalka Congo, iyada oo dadka midowna loo diidanaa in ay xaq u yeeshaan in ay codeeyaan ama ay samaystaan ururo shaqaale ama kuwo siyaasadeed. wax walba waa loo diiday dadkaasi oo ka fogaa aqoonta asaasiga ah. dadkaasi ayaa waxaa lagu hayay nidaam horumarineed oo aad gaabis u ah, kaas oo keliya waxtar u lahaa dadka macdanta meelaha laga qodo iska leh ama degan iyo dadka xukunka haya. hase ahaatee waxaa kale oo xitaa la hubsaday marka dalku uu xoroobo in aan la helin dad indhergarad ah oo dalka u dhashay oo wax xukumi kara. sidaas darteed madax bannaanidii la gaaray sanadkii 1960 waxay ahayd mid la saadaalin karay in ay ku dhammaanayso masiibo. macdanta laga qodo waddanka badankood waxa ay ku xiran yihiin webiga Congo. qaybo ka mid ah gobolada ayaa isla markiiba isku dayay in ay dalka intiisa kale ka go'aan. ciidankii ayaa ka gadooday saraakiishii Biljamka ahaa. dhowr toddobaad gudahood ayaa waxaa dalkii isaga baxay indhergaradkii Biljamka ee dalka xukumi jiray, taas oo meesha ka saartay cid kasta oo xirfad u leh maamul ama maaraynta dhaqaalaha in dalka laga dhexelo. 5,000 oo ka mid ah shaqooyinkii dawladda ee xorriyadda ka hor ayaa waxa ay dadka reer Congo ku lahaayeen 3 jago oo kaliya. mana jirin qareen u dhashay dalka Congo ama injineer ama dhakhtar ama qof yaqaanay cilmiga dhaqaalaha. qas ayaa ka dhacay gobolka oo dhan. kooxo ayaa hubka isu qaatay. dawladihii waaweynaa ee dagaalkii qabooba ayaa ka hor istaagay kooxihii dalka isku hayay in dhinacna ay yeeshaan gacanta sare, taas oo si adkaysay in xal waara la helo. isaga oo ku dhex milmay isqabqabsigaas ayaa hogaamiyihii halganka Congo Patrice Lumumba waxaa si xun u dilay mucaaradkii ay reer galbeedku taageerayeen. nin adag oo military ah, Joseph Desire Mobutu, oo ciidanka gumaystaha saajim ka ahaa ayaa xukunkii la wareegay. Mobutu waxa uu noqday kaligii taliye. sanadkii 1972 waxa uu magaciisii u bedelay Mobutu Sese Nkuku Wazabanga, oo macnaheedu yahay dagaalyahanka awoodda buuxda leh. reer galbeedku way u dulqaateen maadaama ay macdantu u socotay xaggooda. dalka Kongona uu dibadda ka joogay xerada isbahaysiga Sofiyeedku uu ka raadinayay qaaradda Afrika. Mobutu qoyskiisa iyo asxaabtiisu waxa ay dalka ka dhaceen balaayiin dollar. qasri ay ku baxday 100 bilyan oo dollar ayuu ka dhistay dhulka miyiga fog ee Gabadulayd. waxaana loo dhisay garoon dayuuradeed oo ay ku degi karaan dayuuradaha waaweyn ee Concorde si uu ugu soo adeegto magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. cajiib. mucaaradka waa la jirdili jiray ama waa la iibin jiray. wasiiradu waxa ay dhici jireen miisaaniyadda oo dhan. reer galbeedku waxa ay ogolaadeen xukuumaddiisa in ay soo daynsato balaayiin dollar oo marka dambe la xado. ilaa maantana Congo lacagtaasi way bixisaa oo waa dayn lagu leeyahay oo aysan weli magin. sanadkii 1997 isbahaysi wadamada Afrikaanka ah oo ay dariska yihiin oo dalka Rwanda uu horseed ka ahaa ayaa iyagu oo ka caraysan sida Mobutu uu u maamulayo Congo waxa ay hoysiiyeen qaar badan oo ka mid ah kuwii geystay xasuuqii sanadkii 1994. kooxahaasi oo la abaabulay ayaa weerar ku qaaday Congo kadib markii ay go'aansadeen in ay ka takhalusaan Mobutu. nin reer Congo ah oo dibadda ku noolaa Laurent Kabila ayaa laga keenay Afrikada Bari si looga dhigo hogaamiye. ciidamada Congo oo lacag la'aan ay haysay ayaa ka soo horjeestay madaxdooda, taasoo keentay in asxaabtii madaxweynaha ay kala cararaan. Mobutu dayuurad ayuu ku qaatay wixii qiimo lahaa ee uu qaadan karay, iyadoo askartiisu ay dayuuradda xabado ku ridayeen ayuu baxsaday. markii xukunka loo dhiibay Kabila oo dabadhilif u ah Rwanda waxa uu diiday in uu yeelo wixii loo sheegay. mar kale ay Rwanda weerar soo qaaday, laakiin markan waxaa celiyay xulafadii Afrikaanka ahaa oo xilligan iyagu mid isugu soo jeestay. dalka Congona dagaal xun ayuu galay. ciidamo shisheeye ayaa ku dagaalamay gudaha dalka Congo maadaama dawladda dalkaasi gebi ahaanba ay burburtay isla markaana fawdo ku baahday dalka oo dhan.
heshiis nabadeed oo aan caga adag ku taagnayn ayaa 10 sano ka hor la qabanqaabiyey. bariga fog ee dalka Congo dagaal ayaa mar kale ka qarxay, halkaas oo ay isku hayaan kooxo maxalli ah iyo kuwa caalami ah oo la dagaalamaya ciidamada dawladda Congo iyo kuwa qaramada midoobay. Boortaqiiska, Belgiumka, Maputo iyo xukuumadihii ka dambeeyay dhammaantood waxa ay si olakac ah u caburiyeen in dawlad xoog leh ay dalkaasi ka dhalato. waayo taasi waxa ay faragelinaysaa danahooda koowaad oo ah in ay ka faa'iideystaan macdanta dhulkaasi ku jirta. balaayiin dollar oo laga sameeyay kheyraadka dalka waxba soo ma kordhin oo aan ka ahayn dhibaato iyo dhimasho dadka saboolka ah, halka ay ka taajireen kooxaha xukunka haysta iyo taageerayaashooda shisheeye. dalka heerkaasi siyaasadeed ee kala duwan soo maray welina dhex dabaalanaya xaalad adag oo aad u liidata waxa uu dhacaa bartamaha qaaradda Afrika. waxaa loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. sidoo kale waxaa loo yaqaanaa Congo Kinshasa sababtoo ah waxaa loogu magac daraa caasimadiisa Kinshasa. baaxad ahaan waa wadanka ugu dhulka weyn wadamada saxaraha ka hooseeya, sidoo kalena waa wadanka labaad ee ugu dhulka ballaaran qaaradda Afrika. waana wadanka 11aad ee adduunka marka laga hadlayo baaxadda dhulka uu ku fadhiyo, wuxuuna ku fadhiyaa dhul cabirkiisu dhan yahay 2.345 milyan kiiloomitir oo isku wareeg ah. tirada dadka waa 86.79 milyan oo ruux. tirakoobkii ugu dambeeyay ee la sameeyay sanadkii 2019 oo uu sameeyay Bangiga Adduunka. luqadda rasmiga ah waa Faransiiska. dhaqanka dalka iyo kor u qaadistiisa waxaa ka xoog batay oo boor ku qariyay amni darida dalka, nabadgelyada oo liidata, maamul xumada daashatay, hidde iyo dhaqan, maamuus iyo horumarin. waxaa lagu fikiri karaa marka bulshadu ay haysato nabad ay deegaankooda ugu noolaadaan iyo barwaaqo ay ku tamashleeyaan. aragtidaada ka Soomaali ahaan maxaanu ka baran karnaa wadanka Congo?